بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني تحناها اها برشاد اللغة انجليشكا اتكلا سعوتين channel كينا يوتيوب جعفر برو. هداد نوع عصبتهاي فضلا سبسكرايب نوصار كمبلال كانوا فروسي كوسو غاران 10 دي قدام بي انسو قلن يوتيوب كان American vs British words erayo American iyo British oo kala duwan. Americanku waxay dugsiga sare u yaqaanaan high school halka Britishka ay dugsiga sare u yaqaaniin secondary school. Marka Mareykanka dugsiga sare wuxuu u yaqaanaa high school halka Britishka ay ayaga u yaqaaniin dugsiga sare secondary school. Erayga labaad Mareykanka kubadda cagta waxay u yaqaaniin soccer halka Britishka ay u yaqaaniin football. Erayga saddexaad Americanka waxay u yaqaaniin filmaanta movie halka Britishka ay u yaqaaniin film. Erayga ku xiga Americanka markay isticmaalayaan tirtire waxay yiraahdaan eraser halka Britishka tirtire ay u yaqaaniin rubber. Erayga ku xiga Americanka nacnaca ama waxyaalaha macmacaanka waxay u yaqaaniin candy halka Britishka ay nacnaca u yaqaaniin sweets. Americanka waxay buskudka u yaqaaniin cookie halka Britishka ay buskudka u yaqaaniin biscuit. Americanka waxay dhahaan galleyda waxay u yaqaaniin corn halka Britishka ay galleyda u yaqaaniin maize. Baabuurta xamuulka ah Mareykanka wuxuu u yaqaanaa truck halka Britishka ay u yaqaaniin lorry. Americanka waxay baabuurta yararka u yaqaaniin cab halka Britishka baabuurta yararka tagaasida u yaqaaniin taxi. Americanka wuxuu dabaqa u yaqaanaa apartment halka Britishka ay dabaqa u yaqaaniin flat. Americanka waxay surwaalka u yaqaaniin pants halka Britishka ay surwaalka dhahaan trouser. Americanka waxay boorsada gacmeedka u yaqaaniin purse halka Britishka ay u yaqaaniin handbag. Americanka waxay u yaqaaniin xafaayadda diaper halka Britishka ay xafaayadda u yaqaaniin nappy. Americanka waxay tooshka u yaqaaniin flashlight halka Britishka ay u yaqaaniin torch. Americanka waxay musqulaha u yaqaaniin restroom halka Britishka ay musqulaha mas'uuliyada u yaqaaniin toilet. Americanka waxay taleefanka gacanta u yaqaaniin cell phone halka Britishka taleefanka gacanta u yaqaaniin mobile phone. Americanka waxay wiishka la raaco ee dabaqyada ku samaysan u yaqaaniin elevator halka Britishka ay u yaqaaniin lift. Fasaxyada Americanka waxay u yaqaaniin vacation halka Britishka u yaqaanaan holiday. Americanka waxay qashinka u yaqaanaan garbage halka Britishka ay qashinka u yaqaaniin rubbish. Americanka waxay u yaqaanaan waraaqadaha la isku diro mail halka Britishka ay warqadahaas u yaqaaniin post. Americanka waxay u yaqaaniin burjikada wax lagu karsado stove halka Britishka ay u yaqaaniin cooker. Shidaalka lagu shubto baabuurta Americanka waxay u yaqaaniin gasoline halka Britishka ay u yaqaaniin petrol shidaal. Americanka waxay daasadaha dhahaan can halka Britishka ay daasadaha u yaqaaniin tin. Americanka waxay u yaqaaniin meelaha baakinka ee baabuurta la dhigto parking lot halka Britishka ay baakinka baabuurta u yaqaaniin car park. intaas ayaan kusoo gabagabeynay. haddii aad ka heshay casharadan ee cashara intaan ka xiiso badanba fadlan la wadaag asxaabtaada noona sheer gare. aad iyo aad u mahadsantiin.